بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد معلو دمان باوينta banaadirga meel kastoo adduunyada ay ka joogaan waa idin salaamaya khaasatan baaweynta ku nool degmada Shingaane waad la socotiin muddo dhowr bilood ah aniga maan soo fadhiisanin warbaahinta laakiin maanta waxaa iga keenay waxyaabo oo cajiib ah oo ka socdo degmada Shingaane horta marka koowaad dhammaantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa khaasatan 16 qabiil oo la sheegayo inay ku nool yihiin degmada Shingaane inaan warsado hal su-aal su-aashaas oo ah macnaha la dhaho masjid yaa ay macnee kalaa macnihiis مسجد حفيز دولة مياه قولي دولة مياه قولي مدحوين دقن مياه قولي العقل يهلاي مياه معنيه هسه إن أقعد الربا كو طلبات وانا سعوتين قولك بنادر أما مقالة حمر وحاجرة saddex walxaanood oo taariikhu ah ummadda reer banaadiriga ah ummadda reer banaadiriga ah waxaa kamid a masjidka jaamacadda xamar weyne maxaase ahayd masjidka sheekh cabdilcaziiz iyo jaamacada Shingaane si fiican u maqla waa jaamacada Shingaane okay aan ka soo qabano jaamacada Shingaane waa jaamacad taariikh leh oo dheer sida jaamacadaha xamar weyne iyo sheekh cabdilcaziiz ay u leeyihiin ayuu u leeyahay dhaqan soo jireenna wuu lahaa jiray mucjizana wuu leeyahay oo la socda kulli caawa idin tusaa aniga jaamacada Shingaane jaamaca ahaan maamuli jiray xaaji maxamed cabdullaahi xamuudi shanta waqtina waxaa dushi jiray amaya qadhiib jumcaha waxaa dushi jiray ashraafta sharif sagaaf waxaa bedelay sharif saadaad shanta waqti markii amaya la waayo ama soo daaho waxaa dushi jiray xaaji axmed gaab yacquub xaaji axmed deey soonka markii la gaaro taraawiixda waxaa dushi jiray amaya qaliib ama xaaji axmed dey hadbo qur-aanka oo taraawiixda la akriyo waxaa ku horneed qabiilka baafadal waxaa akri jiray adoogeyga allah yarxam haddii la waayo walaalkeyga axmed hadduu safar jirana buugga waxaa loo dhaafi jiray xaaji axmed dey waa dhaqan soo jireen ah maanta waxaa nasiib dara ah waxaa nasiib dara ah ilaa hadda oo qabiilada qaarkooda iyo odayaashooda qaarkooda ay la yaaban yihiin yacni jaamacada Shingaane inay qoolo ay ku hunguri raadsato ama wejigeeda ku gadato sharafti reer Shingaane dhan xataa ay waa gudi waayeen jaamacada Shingaane laba qabiil ayaa dhul dhiibay ashraafta iyo baafadal abaalkooda haddaa in la waayo nasiib daro guddi ayaa la sameeyey kusoo dhawaad xaashadan koowaad waxaa la yidhi guddoomiyaha jaamacada Shingaane mister saciid cabdulqaadir saciid buuwe waa guddoomiyihii degmada Shingaane hore waa markii ceebtiisa soo baxday markii xamar weyne waxaa laga qaaday cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir iyo saciid dowladdii dabluljadiid ayaa suudaan geysay cabdulqaadir weli degmadiisba u haystaa ninkaan koo wax tari waayey waa asoo da-yar
iyo qiimaha ay ku fadhiso degmada shingaani waa taqaaniin warqadana ujeedin guddoomiyaa laga dhigay waa wiil yar waa ceeb oo dawaarla ah oo boondheera degan aan loo magacaabay jaamacadda shingaani okay ma xubo haddana waxaa la rabaa in la abuuro fitna dagaaleed oo diin ah sababtoo ah dhaqan soo jireen ayaa jiray waana idin tuseynaa iyadoo maqal iyo markhaati iyo muuqaal leh waad la socotiin ashraafta oo shingaani degan jumcada ayagaa dushi jiray okay maanta waxaan ujeednaa waxaa noola keenay magaceedaan akrista qadib aa layidhi shariif maxamed cumar saydi ko labo cabdulqaadir cali shiikey cumar saddex sheekh maxamed cusmaan axmed waa cajiib waa cajiib waa ashraaf aan degnayn degmada shingaani oo mayi laga keenay aan la ogeyn waa arrintan arrin xasaasi ah wax kalena waa idin tusaa hadhow ayagoo milkiilaha degmada shingaani generaal jaketi oo ashraafta kala qeybinayo oo maqal iyo muuqaal leh qeybtaan meel ii dhiga ma xumo yani ashraafa shingaani laga waayi heer shariif maxamed idruus bilaajo waa la waayi yani ashraaf oo kale aanoo la keenay oo ayaga ashraaf u ah good xaashida siraxa haddana waxaa lidi xaaji axmedeey mayow cali cusmaan maxamed cusmaan aqaan axmed maxamed axmed ma xumo okay intaan la soo tiriy waa imaanyada haddana waxaa lidi muadinka xasan cumar sheikh nuur cumar baana cabdulqaadir awees xasan waa cajiib yani degmada shingaani masaajidka waxaa loo qeybiyey saddex muadin ya saddex oo salaada dushinaya jumcada saddex oo imaam ah okay waxaa lidi haddane markhaati xubno waa markhaati oo bilaa ictiraaf ah yaa la keenay ko xuseen ciise maxamed labo cabdulqaadir xaaji cali saddex yaasiin xaaji axmed afar cumar maxamuud abubakar baafadal awees maxamed amiin markezi waa xamuudi waa ninka dhihi jiri assalaamu calaykum marka laba door oo qurax la siiyo assalaamu calaykum maanta waxaa yimid eeadhaween masaajidku soo dhawaada oo bashameyntaa la keenay xuulow naqday ko intana maxaa yidhi guddoomiye saciid cabdulqaadir saciid buuwe xamuudi koryaa laguu saaray xamuudi hoosyaa laguu soo xeri xamuudi labo ka soco haddana waxaa la yidhi odayaasha oo farmaaneeyeen warqadaan waxaa kamid a caaqil anaga caaqil weligeena ma maqlin reer xamar waxaana la dhihi jiri haddii dagaal ama gebar la dooranaayo oo qabiilo kale ama hawiyaha ama daaroodka ama dhinaca kale aan ka doonayno akhyaarta reer xamar waa nabadoonade akhyaarta reer xamar hadday xamrooniyiin malaaqa iyo dadkaasaa la dhihi jiri ayaa gabadha soo doonteen ayaa gabadha bixiyeen kelmadan caqiil axmed cali ikir alxamuudi axmed hal su-aalaan ku warsanaa anigii adiga 2015kii markaan xamar imid waxaan ku dukanay jaamacada sheekh axmed door waa sheekeysan waxaan ku dhaliniyo xaafadda waa imide adigana odayaasha xaafadda eed
oo dawladka caankana kasoo shaqeey xaafadana khibrad waa u leedahay xafiiskan maxaa usoo geli weyse xasuuso waxaad ii jawaabday dabaan tegi jiri hadday taliyaan dabaan tegi jiri aad tagaan aniga meelahaas oo kale oo lagu haayo cadaalad darada iyo ummadda lagu dhacaayo ilaalushka lagu qaadaayo ma aadaay iga dhaaf masjidkayga iyo milikayga ma dhaafayo maantana waxaa arkoyaa caqiil markii meel la aadayo waxaa leeyahy caqiil ka hadlaa markii meel kale la yimaadne waxaa hadlaa nabadoonka camuudi waa labo okay waxaa yidhi inta farmaareysay warqadan waxaa kamid a ko caqiil axmed iker xaaji cabdullaahi camuudi ko nabadoon shariif cali quluteen okay shariif cali quluteen caamar waa ogtahay waa ninkii shariifka kaaga eexday oo si 25 oo kursiga lagaaga qaatay da-diisa usii cumar maxamuudne waa isku jijihiin ninkan soo ku dhaqday nabadoon baa fadal leh qabiilada kamid a waa shingaani ugu caansan ugu cadcad oona garab ku siiyeen adoo onos oo meel arko ku dacwoonayeen ay u waayeen nabadoon kabood filigiis waa dambeeya waxaa ku xiga nabadoon axmed abukar xaaji awees aba sokor nabadoon yaasiin sheekh axmed nabadoon cali xasan bilaal nabadoon shariif jeylaani xaaji naasir shariifkan waa nagu cusub yahay shingaani madowna aan weligay ma arkin haddii maga cusub yahayna allahu yaclam laba ashraafaa nabadoon soo gashay waa 60 qabiil oo raba inay nabadoon ahaadaan labaa soo gashay nabadoon waxaa ku xiga awees amiin maxamed amiin markasi waa camuudi kale marna nabadoon oo cod ku dhiibaa marna wuxuu ku dhiibaa caaqil firi mar waa nabadoon marna waa caaqil mar waa nabadoon marna waa caaqil laba ma haysataa okay ha u bixin nabadoon xaaji axmed mayow nabadoon abukar sheekh baafo abukar sheekh baafo waa nin cabdi samed sax muu diidan adoos sheekh abukar baafo wuxuu degnay maanabolyo masaajidka wuxuu ku dhegnaay maanabolyo sharif dhagaweyne waa naqaanaa walaalkiisa doctor bakaa doctor shariif kulli waa naqaanaa familiga o dhan asoo cabdisamed ah oo weli heer bilaaja ah aan nabadoon ahaan shingaani loo tixgeliyey okay su-aal inta 9 waay 8 tami 1 tami 2 tami 3 tami 4 tami 5 tami 6 todobada qabiil kale nabadoonkooda aawi magaceedooda aawi camuudi lamay qaateen kasoo tag warqadda mujeeda 1 2 3 1 2 3 4 ayaa firmaarayeen intii kale feermadooda aabe kasoo tag haddana waa ujeediin timbraa masaajidka maxaa ku qoran maxamed cali hebel alcamuudi marka waxaan rabaa inaan warsado alcamuudi camuudi koo horta ilahay idinka dhigay waa qabiilkiina cid idin diidi karta male anigana baafadalaan nahay nin la arko oo adduunka nool qabiil ayuu kasoo horjeedaa qabiil ayuu kasoo jeedaa marka inta baytullaahi waayo yani ceeb waayo guddoomiya camuudiyaad siisi meeyi odayaasha dhaqameedka 2 camuudiyaad keentay 3 meeyi xubnaha 1 camuudiyaad keentay 4 ninka lacagta aruursanaayo oo masaajidkiisa jabiye oo inta korna baafol iyo waxa aflagaadeey ya maxamed ya cali axmed ya oo dan wuxuu ku qortay
maxamed cali alcabudi hotmail gmail timri degmada shingaani okay marka jaamacada shingaani haddaan warbixeedi masiiyo kooban mucjizadiisa waa la arkay inta ku dhacdayna waa la ogyahay ma sheegeeno xaaji maxamed cabdullaahi marka u dhintay ilaah u naxariistee odayaasha meeha joogay way fadhiisteen wiilkiisa ayaa loo dhibay abukar qolof wixii ka dhacayna waa la ogyahay ilaa jeel laisku geeyo ilaa mucjiza ilaahay timaado oo dad qaarkooda sariir maanta fuulaan baytullahi ninkii awood ku sheegdo ama baytullaahi ninkii wax ku xado saasoo dhaqanaa okay hadda waxaa idin tusaa milkiilaah degmada shingaani generaal jaketi oo noo caddeynayo inuusan jirin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo bug yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheere inuu bug yahay wasiirka arrimaha gudaha inuu bug yahay amniga qaranka inuu bug yahay allah yarxam marxuum yariiso inuu bug ahay i kan hadda la keenay cumar firish inuu bug yahay waxaa noo caddeeyey in lagu casumay hotel shamo oo ilaa hadda haddii la warsado wixii loo casumay aan ogeyn oo ceeb ka dhacday midna waa soo orday kutaab qur-aan ou sii iyo wuxuu ku yiri reer xamar waxay diyaar u tahay inay cashoor kasta ay dhiibaan yaa warsaday doqomadaada weli ma hadlin aabe odayaashii loo baahnay inay garabkiis fadhiistaan aabe kasoo tag ku soo dhawaada generaal jaketi oo af lagaa deenayo dowladda soomaaliya ee federaalka salaan kadib waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddeeyo anoo baaqaasna u diraayo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed maxaa la lahaa maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi iyo xildhibaanada soomaaliyeed shingaani xildhibaan ma qabto mana jiro shingaani yaan been isku sheegin luftii wuxuu ka yahay shingaani ma jiro wuxuu ku leeyahay ma leh marka anigaa ninka la tartamay aniga waaye kursigan imbegaada ninka ka keenay shingaani uu keenay aniga waaye 100 hadda baarlamaanka ka tirsanaa weydii kartiin kursigaas ninkii keenay her shingaani uu keenay aniga inaan ahay lufti shingaani uma dhalanin ashraafna ma aho mana sheega karo banaadirina ma aho in la dhaho ishraaf waay anaga ishraafta anaga dhalan anaga soo korno as naqaana ishraafka gobolkan banaadir ku dhalatay shingaani deginta waan naqaana waa maqasheen wuxuu yiri lutfi ashraaf ma ah good bravo awara ashraafta haddaad keenti ma ashraaf oo markaad ka keenti lutfi duu ashraaf ahayn waa su-aal ashraafta markaad ka keenti oo anaga salaada udushinayaan ma ashraaf mas waa fidno doorashadaa soo socda hadha doorashada soo socdo adoo birta manooya heer shingaaniyow taxadirkiina qaba yani afkiis maxaa ka maqlayseen lutfi degmada shingaani ma imaan karo usiga maa leh ummadda wuxuu ugu waajabaa ama been ugu sheegaa ani gendaa waa usoo dhintay kursigaan waxuu ku helay shariif maxamed cidi marka u alitareya u guuri oo dawladii sheekh shariif la safday oo ayga siiya lawaaya adiga ninkan haliska siiyo maana haddii alitareya oo sheekh shariif aadi lahayn maxaakiinta maxamed cidi sidiisa u haasla horta yaan ummadda lagu qaldan waa cajiib soomaalida waxay tirahaa meel ka muuqo ama ka maqnaaho waad maqlayseen generaal jaketi inuu yiri jamhuuriyadda dimuqraadka soomaaliya generaalo meel markaad ismaanaysid waa laissoo habeeyaa waana laiscontrolaa haddaad mas-uul tahayna
adigoo caraysan meel mala yimaado. ko jarnaal hal su-aal, su-aashaas oo ah shanta shingaani aada geysay liiskooda gobolka. ko reer maajo okay, saddex geedi okay, ashraaf okay, yacquub okay, kursigii camudi oo shanta shingaani ninka aada geysi kusoo dhawow. hori waa qaadan karnaa, waxna waa dili karnaa, laakiin ilaahan ka cabsanayna inaa dhiiggalna ma rabno. waad aragtay reer shingaani miha mase waxaad u geysay doorashada soo socdo markay camudi 25 keenaan, qabiilka kalena 25 keenaan, inaa odaygaan meha yimaado oo dhaho oo dhaqameedkii banaadir aan ahay suldaanka ama malaaqa codka waxaan siiyey dhamaystiro si ala lagugu sameeyey. taasna jawaabteeda waa lagaa rabaa. ko fariintan waxaa u faraa marka ugu dambeysta warka doctor saalax idruus, horta waa ka xumahan maanta waxaa tahay nin ilaahay magac siiyey, hebadaasne ilaah ku siiyey, ilahay cumar dheer iyo caafimaadka ku siiyo, ani ma kaa qaadi karin. laakiin waxaan jeclahay aniga waa itaqaanaa, aniga dhaxlow adigana waa ku qasaa inaan u hadalno dadkan labadeena ninba keligiisa u galaa. cawadaal su-aalaan ku warsanaa, nuuraanina waa nool yahay. fariin badan oo reer baafada ii soo direenna waa hayaa oo dhaheen saalax arrintan wax maka ogo. ani waxaan dhahay waxaan u dhaara karaa, waa igu wallaahi, waa igu bilaahi, waa igu tallaahi inuu saalax idruus waxaan ogeen hal camudi aan dhaqaaji karin. dhowr buruuf, dhowr cod, dhowr agshinaan hayaan dhahay, laakiin taariikhdiisa aan soo deynaa. waxaan rabaa doctor saalax inaad iga garbaxdid hal su-aalaan ku warsanaa, weli waxaan kuwa xasuusinaa sow ilaahay ila ogyahay, adigana ugu soo jawaab ummadda shingaani codkaaga. haddaad ugu soo jawaabin calaamata suquud rida waay. su-aashaas waa doctor saalax aniga markii jaamacada kowla bilaabayay waa i wacday, waa kuu imid, weli waxay tiri nuuraani ii keen. waxaan ku iri abqaadi nuuraani fillow duugoya tami kow sac keen tiri tamaam sac hadduu shirka dhici waaye waa fasaxa. tami kow sacaan kugu keenay masaajidka fanisbury park. aniga iyo adiga iyo asagana waa nool yahay, waa fadhiisani inay dadka imaanin. su-aalaad warsatay, su-aashaas haddii been aan ka sheegayo ilaahayow shacbaanka iyo ramadaanka salaam hay u gaarsiinin. hadda waxaan kaa codsanaa nin ahludiina tahay, sow ilaahay kula og yahay inaa u sheegi. nuuraani waxaad ku tiri lacagtii masaajidka aan kuu soo diray saddexdeena ahayn masaajidkaana ku jirnay, maxaa usoo dhiibi weyse? nuuraani wuxuu kuu jawaabay lacagta masaajidka ma dhiibaaye, masaajidkaas reer shingaani dhan aa leh, reer camuudi ma laho. aniga waa dhahay waa iska aamus, warka waa celi shuba ka dhahay shubaa ka tiri. waa kugu soo noqday, waxaan ku iri doctor saalax 5 reer camuudi oo guddiga masaajidka a jiraan, cabdiqaadir ku jiraa, walaalkiisa ku jiraa, cabaas camuuda ku jiraa, kanaa ku jiraa, kana waxaa tiri maya reer camuudi le waaye. codka waa haya jawaabtaan soo deebaysa aan keenaa. okay aan ku dhahay xamaray tageen masaajidka oo jajabi wuxuu iri reer baafadal iyo reer sheekh oo jiraane waxaan ka codsaynaa maadaama ay masaajidka jiraan ku yihiin hadday dhowr la siinayaan. waa stupid aan qabiilka macnihiiska siin iyo ixtiraamka iyo walaalnimada
asaga guriga degnaay iyo masaajidka meeqa isku jiraan aniga gurigaa degnaay meeqa isku jiraan iyo xaaji cumar cali shooble heer sheekha meeqa isku jiraan ii sheeg codkaas noo kuu soo deyna labo masaajidki waa jabi waa ti adiga soo hooyati doctor saalax adiga soo hooyati markaatina waad kusoo dhawaaw الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ضمان أهل بافضل ميل والبواد عالم كجوبتان قود هانتين وعود السلامتين سلام كديب حان آد وفرح صنهي كالفرق ما تكرعي دلك يوكي ووالدين تينا كل من دكتور صالح عيدروس العمودي iyo sidoo kale waalidkeena ama odayga baafadal al-ustaad abubakar cabdiraxmaan baafadal oo yani maasha allah tabaaraka allah farxad weyn inoo ahayd in ay isku afgartaan dhammaan khaldaadkii dhaceen khaldaad ma dhihi karno laakiin suu tafahamkii dhacay dad walaal ayaa nahay waxaana loo baahan yahay mar walba maasha allah tabaaraka allah siduu ilaahayna farayo wactasimuu bixablillahi jamiican ولا تتفرقوا sidoo kale kulanka labaad ee walaalkeena doctor Mustafa Saalax waxyaalo badan ayaan ka wada hadalnay wuxuuna ii sheegay in waalidkiisa asaga ka weyn uu la soo hadlay waalidkeena weyn dalka Holland Jido Yaxya doctor Saalax ayaa wuxuu soo wacay Jido Yaxya raalgelina uu ka bixiyay khaldaad haddii ay camuudiga dhankooda ka tabanayaan ama ka sheegayaan maadaama ictidaar la rabay ictidaartaasi way soo bixiyeen annagana Jido Yaxyo sidoo kale wuxuu yiri annagana dhankeena hana laga raali noqdo waad baqash marka annaga haddaan na heer baafadal mana qabataa masaajidkaas intaas sano ay usoo jiray intaas sana camuudi walaala ahayn qabiil kasta walaala ahayn insaas qabiilkeena loogu bahdelo xubintii aan kala henna nagula ixtiraami waayo xataa waxaan ku xasuusinaa aad dacaayad noo geliseen camuudi 1970 markii aa caalin oo mu-adinka ka ahay jaamacada shingaani gabarta ashraaf oo aroosayay oo dhehaysan allahu akbar allahu akbar xasuusta waa taalaa ninkii aadaami jiray marka waxaa rabnaa anaga daayir baafadal nahay baytullaahi doodna ma geliyeeno far ma geliyeeno waxaan rabnaa adaa odayga camuudi maanta oo muxtaram ah arrimahaan sii ku dhaceen inaad nooga soo jawaabtid haddii nooga soo jawaabi weysina adduunyadaa taariikh waay maanta farmaajaa madaxweyne fuulaa dad badanaa kabaa u qaadooyaan beldarkoo kalaa imaanaa dad kalaa kabaa u qaadayaan adduunya saas waay laakiin anaga barabno baytullaahi baytullaahi inaan heerkaas aan gaarsino tan kale waxaan rabaa inaan la hadlo dhammaan qowmiyadda banaadir meel kastoo ay joogaan iyo reer shingaani waad la socotiin markau madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiir oo mashruuc weyn oo muhiim ah oo furaayo kow waxaa kusoo dhaweeya guddoomiyaha degmada waxaa ku xiga kaama qabiilka ama malaaqa ama caaqilka ama nabadoonka si loo yaqaan degmadaas waxay isticmaasho waxaa kusii xiga ninka mas-uulka meeha la dhisay hadduu isbitaal yahay hadduu masaajid yahay hadduu wax kasta yahay 3 waxaa loo mahad celiya ninka meeha dhisay injineerka okay hadduu maanta beri ama mas-uul yimaad ama madaxweyneha yimaad ama ra-iisul wasaaraha yimaad ama duqa magaalada yimaad guddoomiyaha degmada waa camuudi ko caaqilka degmada shingaani waa camuudi inta kale waa nabadoon caaqilkaa ka weyn guddoomiyaha masaajidka waa camuudi 3 ninka lacagta arooriya iyo ninka masaajidka jabiye iyo ninka dhisay
waa camuudi marka maku haboono marka maku haboono ama maka fiicno in la dhaho jaamacad alcamuudi inti la yidhaha jaamacada shingaani ra'yigaasaan soo jeedi lahay in loo codeeyo waxaan igala xishoodeen camuudi guddoomiyaha degma shingaani iskoolka masaajidka misbah dudumiska xataa kiilo doolar la siinaya quraac oo allahu akbar maanta waxaa yimid maxamed maclo raba tarniigaas keeni yani control xubnuhu ku jira gabalkeedkaa qaadateen meel kasto yani dadkaan kale mama jiraan miya anaga wax kala midin dheeno hortiinaa ka helaysin anaga laakiin aan rabno aan rabsha kicino mindi mindi ku taag baafadadaa sameeyeen intaasaa wax u dhacay ma rabno waa nila fiilin ooya ee waxaan kaa rabaa doctor saalax jawaabtan aan kaa rabaa xubintii baafadal intay ka baxday aninaan ogyahay waa og yahay camar shageet adna waa ogtahay shingaani waa ogyihin wax og yahay anagaa dadka dhigni anagaana difaaceyni haddana anagoo naga soo horjeestay jawaabtiisa tan labaad ashraaf maahan dagaal aa soo socdaa oo rabo in nila geliyo ka digtoonaada sababtoo ah ashraaf annaga baafadal abtiya u nahay ninkii ogeen ha ogaado ulaajadi rasuulillahi waaye abtiya u nahay waa ka naxina wixiina sii xaq ama wax kasta kuraadsada laakiin fidnaa la abuurayaa oo ashraaf dhexdooda ah shalay maxamed maxamed lesen generaalka milkiila mauli lutfo ashraaf ma aha ko okay ashraaf miya marka walaalkeeniyaa way ashraaf miya maau dhahay ma u dhalanin degmada shingaani ka marka walaalkeeniyaa way oo anaga shingaani kasii weli camuudiya kasaaya miya marka waxaa idin sheegaya shingaani hala sabro masaajidka haddii guddoomiye loo bixiyey yani guddoomiyaha degmada shingaani camuudi guddoomiyaha masaajidka camuudi guddoomiyaha gobolka camuudi guddoomiyaha iskoolka camuudi marka waxaan ka codsanaa hadduu imaqlaayo wasiirka arrimaha gudaha ama duqa magaalada oo ku daro taliyaha nabad sugidda ee degmada shingaani iyo taliyaha booliiskana camuudiha oo ku daro kulli ha qaataan kii hadla xeraan kii kale ha ka musaafiriyaan marka warkeyga mayaan oogu baxayna